bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan karsanaynaa shaahaasoo aan laga sameynayo shaaha caanaha lagu sameeyo. Anta waxaa igu jiro adiga 3 bakeeri oo caano. Shaahaas u badan ma ahan, haaf sokor aan ku darsaday. Waxaan kaleeto rabaa inaan ku darsado waxyaabii aan ku carcarfin lahaa. Waxyaabahaas waxaa kamid ah waxaan inta igu jiro sinjibiil shiidan, qarfiiheel iyo dhagayare. Intaasaan ku darsaday. Waxaan rabaa kaleeto inaan ku darsado caleenta budada caleenta budada ku darsaday kabacdi waa kor taagnaaha si uu iga burin. Waa kana qaadadaasaan ku walwalaaqaa ama ku qasaa. Shaahan aan ku dhahay caraftiisa waa yaabahan ku dhahay isaga dhan maasha Allah barobay waa keli doontiin. Saas ayaan ilaa iyo uu ka soo karo ama ka soo fuuro aan qaadada ku walaaqa. Kabacdina waan ka soo shaqshaqay. Waa kana hadeertaan waa ka dajinaa bis waa diyaar. Inta ayaan ku soo shubtay, waa soo shaqshaqday. Maasha Allah carafan ku dhahay shaah kale waxa uga jeclahay waa caraf badan yahay. Haddana waa caleenta markaa budada ku karisid gaduud ayuu yeelanaa. Waa kii oo la dhihi jiray ka jabiye. Haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada share garee. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.